dhammaan ardayda iyo dadka kale markaa ku xiran baa channelkeena waxaan idinku salaamayaa salaatina islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka bacdi maanta waxaad kusoo dhawaataan muuqaal cusub. Muuqaalkeena cusub maanta waxaan kaga hadli doonaa farqiga u dhaxeeya dhakhtarka iyo nursingka. Bal farqiga u dhaxeeya cid walba way fahansan tahay, dad qof caafimaad iyo qof aan caafimaad ahayn. Bal haddana waxaan isla eegi doonaa qof walba waxay ku kala duwan yihiin, difference-gooda ayaan isla fiirin doonaa insha Allah. Kusoo dhawaada. Dhakhtarka iyo nursingku inta badan waxa la yiraahdaa dhakhaatiirtu waxay markaa gutaan baa la yiraahdaa procedures bay sameeyaan. Camal procedure waxaan uga jeedaa gacanta laga qabanayo sida qalliin inay kala sameeyaan, sida surgery oo kale inay galaan. Xagga nurse waxa caawiyaan qalliinka ku caawiyaan dhakhaatiirta, oo waxa kamid ah nursingku inuu anesthesia noqdo, isagii oo anesthesia kala galo oo suuxdintii galo, inuu scrub nurse noqdo oo nurse dhinaciisa isaguna ka caawiyo. Marka waxyaalaha la halmaalo weeye. Waxa la yiraahdaa dhakhtarku wuxuu order gareeyaa ama turjumaa, interpret ku sameeyaa lab work shaqada uu soo saaro laboratory shaybaarka uu markaa soo saaro ayuu markaa turjumaa, iyo markaa wixii sawir ahna isaguna uu turjumaa. Xagga nursingku uu ka caawiyo inuu qofkii bukaanka fahmo wixii markaa lagu turjumay, oo tusaale sawirkii wixii lagu turjumay inuu markaa isagii ka sii caawiyo ayuu markaa nursingkuna fududeeyaa. Dhakhtarku wuxuu qiimeeyaa xaaladda qofka bukaanka, xagga nursingkuna monitoring ku sameeyo, camal uu markaa dabagal ku sameeyo, ilaaliyo vital signs iyo xaalad ilaalmala. Waanu taageeraa qofkii bukaankayo oo taageera ayuu markaa u muujiyaa. Waxa la yiraahdaa qofka dhakhtarka waxa uu markaa develop gareeyaa treatment plan, qorshaha daawada ayuu markaa qoraa, oo waxa soo qorsheyntii daawada ayuu markaa plan gareeyaa. Xagga nursingkuna ficil geliyo daawadii markaa la plan gareeyay ama daawadii la qorsheeyay oo ficil geliyo, iyo markaa wixii kale la xiriir healthcare serviceski kale, adeegyadii kale markaa loo qabanayo qofka bukaanka loo qabanayo nursingka ayaa sii qabta. Thank you for listening. aad baad mahadsantiin. casharka ayar kooban isla fiirinay waxay ku haldoyn adiguna inta in ka sii badan dadayso bil commentiga insha Allah inoogu reeb si markaan commentiga ugu wada xiriirno insha Allah. aad baad mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.